degmada Carmo ee gobolka Bari waxa ay kamid ahayd meelihii sida weyn loogu soo dhaweeyay waftiga ballaaran ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda Puntland ee socdaalka nabadda ku maray qaar kamid ah gobolada Puntland. labada madaxweyne ayaa si wada jir ah kula hadlay xerada kuliyadda tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee halkaasi ku taala boqolaalkii shacabka ahaa ee soo dhaweyntooda ka qayb qaatay. maxamed barre dadaal wariyaha degmada Carmo ayaa faahfaahinta warkani inoo soo diray. waftiga madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Dhaweeyay Maxamed Cali Gaas ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Carmo ee gobolka Bari waxaana soo dhaweyntooda ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka kan degmada xubno ka tirsan golayaasha dowladda waxaana ay uga hortageen afaafka hore ee degmada. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Dhaweeyay Maxamed Cali Gaas ayaa markii ay soo gaareen degmada Carmo ee gobolka Bari waxa loo gudbiyay kuliyadda ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo halkaasi oo madaxdu ay salaan sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska ee ka howlgala kuliyadda ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo. gudoomiyaha degmada Carmo injineer Maxamed Cali Shira ayaa ugu horeyn ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda Puntland degmada Carmo ee gobolka Bari waxaana uu madaxweynaha dowladda Federaalka ee Soomaaliya uga mahad celiyay booqashadiisa uu ku yimid deegaanada Puntland. mudane madaxweyne soo dhawow kuna soo dhawow degmada Carmo gaar ahaan kuliyadda booliiska federaalka Soomaaliya. saraakiishii Soomaaliyeed oo meeshaan ku sugaya in ay ku soo xiroodaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay u carbiyaan laamaha amniga. asad Soomaaliyeed ay tahay inaan waqti inta la geliyo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. soo dhawaada. Sultan Bashir Muuse Konte iyo Beeldaaje Yaasiin Beeldaaje Xaaji Cabdullaahi ayaa dhankooda degmada Carmo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. madaxweyne kuliyaddan Carmo oo aad aragto maantana ku sugan tahay sharafna inoo tahay adiga iyo sida la sheegay taliya ku-xigeenkii booliiska Soomaaliyeed inaad halkan wanaysaan oo joogtaan aad baan ugu faraxsanahay inaad intiina ku aragtaan sida ay tahay iyo sida looga shaqeeyay kuliyaddan ilaa iyo 2005 waxay ku shaqeynaysay oo lagu soo xireenayay ciidamo Soomaaliyeed oo gobolada Soomaaliya ka yimid nabad iyo nolol oo nabad aan u fahmay inay tahay nabadgelyada iyo security-ga iyo laga dhigo priority-ga ay noqoto halkan hadda ku suganahay waxa weeyaan akademiyadii ay ka soo baxayeen dadka halkudhiga aad uga dhigtay nabad. wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim ayaa dhankiisa ka hadlay soo dhaweynta ay u sameeyeen bulshada degmada Carmo. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Dhaweeyay Maxamed Cali Gaas ayaa bulshada Carmo uga mahad celiyay soo dhaweynta wanaagsan ay u sameeyeen waxaana uu ku soo dhaweeyay degmada Carmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa uga mahad celiyay shacabka Puntland soo dhaweynta wanaagsan ee ay ugu sameeyeen deegaanada Puntland.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muddooyinkii u dambeeyay safaro kala duwan ku marayay deegaanada Puntland. Maxamed Barre Saciid Maxamed Dadaal raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland magaalada Carmo.